إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى walaalayaal ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala sanadkan ayaamihiisii ugu dambeysay aynu ku jirno bilowgiisiina soo gaadhsiiyey inaga dhigay kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala cumriga u dheereeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa sanadka aynu ku soo jirnay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala camal wixii wanaagsan aynu samaynay ilaahay noo aqbalo wixii gaf iyo dembi inaga dhacayna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inaga dhaafo walaalayaal maalmaha inagu soo fool leh waxaynu sugaynaa oo inoo bilanaysa bishii sanadka hijrada ugu horreysay ee muxaram waxay noo dhammaanaysaa bishii dilxija ee sanadka ugu dambeysay sidaa daraaddeed meelo badan ayaa laga eegaa sanadku markuu dhammaanayo iyo markuu ka kaleba uu bilaamayo waxay tahay nafteenna inaynu dhinacyo badan ka xisaabinno oo xisaab xidh nafteenna aynu u samayno sanadkaa wixii noo qabsoomay aynu dubu jalleecno wixii samaa ilaahay ugu mahadinay aynu samaynay wixii aynu ka gaabinay aynu ka gaboodfallay ee dembi aynu gallay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobadkeenno sanadku inta aanu inagu dhammaan walaalayaal sanad kasta marka uu dhammaado waxau ina xusuusiyaa maalmo taariikh ku leh sooyaalkeennii taariikhda islaamka waxau ina xusuusiyaa hijradii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waayo labada taariikhood aynu isticmaalno waxaa taariikhda islaamka inoogu qoran amba taariikh alhijriya hijriyadaasi waa hijradii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu maka ka soo hijrooday oo madiine u soo hijrooday sidaa daraaddeed ayaanay ahayn taariikhdaas iyo siday ku soo bilaabantay waxay dadka muslimiintu iska ilaawaan amba ay maraan oonay waxba ka xusuusan bal wuxuu ahaa dhacdadii ugu weynayd dhacdooyinkii soo maray dadka muslimiinta ah ee saameyn ku sameeyey xaqii iyo baadilkii saameyn ku sameeyey dowlad islaama in la helo oo cagaheeda ku taagan taariikhda markaa waxa weeyaan u sameeyey dad muslimiina oo meel u gaara leh oo waxa weeyaan khayrka iyo dacwadda iyo wanaagga inay caalamka ku faafiyaan isku kaashanaya taariikhda bashariyada bani aadamka oo dhan
ayay dhacdadaasi wax ka bedeshay nabigu sallallahu alayhi wasallam ayaa markaa waxa weeyaan ka soo kici timay Maka oo uu soo guuray isaga iyo saxaabadiis markii dhibtii iyo dagaalkii iyo colaadii iyo cagajuleyntii lagu hayay ee xamili waayeen markii ay naftooda la yaabeen ay u baqeen ayay markaa ka soo hijroodeen laba iyo mid iyo dhuumasho iyo si muuqataba way u soo baxeen ilaa ay Madiina iskugu yimaadeen nabigeenu sallallahu alayhi wasallam sida markaa waxa weeyaan amar markii uu siiyay saxaabadii inay ka baxaan oo nin waliba sidii uu hijroon karaya uga bixi karaya Maka uga baxo isaguna qorshihiisii ayuu bilaabay sidii uga bixi lahaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qofkii ugu horeeyay baxamuu noqonin laakiin cidii ugu dambeysay buu ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam sida daraadeed haddii qofku uu akhristo siiradii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo sidii uu hijrooday iyo meelihii uu soo maray iyo wixii uu la soo kulmay casharo waaweyn oo nolosheena dhinacyo badan aynu uga faa'iideysan karno oo qof kasta oo muslimiba uu ka faa'iideysan karo ayaynu ka arkaynaa casharka koobaad aynu ka qaadanaynaa waxa uu yahay tadxiyada iyo nafhurista qofku mabaadidiisa iyo waxa uu aaminsan yahay ay tahay wax walba inuu u huro oo waxyaalo badan uu jecel yahay oo naftiisu doonayso inuu uga tago si uu hirgalo waxa weeye mabda uu aaminsan yahay iyo waxa uu ku dhimanayaa mabaadi badan bay dadku aaminaan oo u dhintaan oo waxa weeye u dadaalaan oo tacabay geliyaan laakiin wax lagu tabco waxa ugu mudan qofka ilaahay waafajiyo inuu diinta ilaahay iyo xaqa iyo islaamnimada mabdiisa dhabta ka dhigto wax walo kastana iyo baadil kasto yimaadana ka hormariyo tadxiyada dhabtina taa weeyaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam taa isagoo ka duulaya wuxuu ku qasbanaaday inuu ka baxo magaaladii uu ku dhashay halkii uu ku barbaaray halkii jufadiisii eelkiisu ay joogeen inuu ku ammaan waayo oo ka dhaqaaqo ayay ku qasabtay nabiga sallallahu alayhi wasallam duruufta arrin fudud maaha qofku halkii uu yaqaaniyo bartiisii uu ku dhashay uu ku barbaaray ee meel kale waxa weeyaan aanu aqoonin gooraan hadna ahayn habeenna ahayn ila yiraahdo ka bax oo duruuftu ay ku qasabto arrin fudud maaha waanu dareemi karaa ilaahay naguma keenay dad dhadhamiyay oo waxa weeyaan deetanaynu deganay baaba mar lagu kala yaacay oo laga qaxay oo qofka dhinacay naftiisu aamin ku ahayd uu uga dhaqaaqay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam taasoo kala soo martay bal rasuulku alayhi salaatu wasalaam isagoo ka baxayo oo murugaysan ayuu Maka sidaa u sii jaleecayay suulaha wala Makay waxa tahay dhulka ilaahay oo dhan halka ilaahay ugu jecel yahay halka anigu aan ugu jecelahay haddii aan la iga ka saari lahayna kaamaan baxeen buu lahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam dareenka isagoo dareemaya ayuu haddana ka baxay waayo daftiisa haddii wax la yeelo waxa kaga sii weynaa in ummadan maanta isaga dhibaataynaysa sidii ay ku badbaadi lahaayeen iyo caalamka dhan ku badbaadi lahaayeen inay mas'uuliyaddaasi saaran tahay ayuu dareemayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam tusaale haddaynu ka soo qaadano saxaabadii iyo siday u hijroodeen iyo dhibtii soo martay waxaa ka mid ahaa qoyskii reer waxa weeyaan Abu Salama waxay ahaayeen laba saxaabi oo isguursaday oo ilaahayna ilmo yar oo Salama la yiraahdo Ummi Salama iyo Abu Salama iyo Salama oo inankoodiya ayay ahaayeen markii ugu horeysay Ummi Salama waxay u hijrootay bilaad Habasha haddana way ka soo noqotay Maka ayagoo jooga rasuulku mar labaad fasaxay inay hijroodaan go'aan bay qaateen way tashadeen oo Abu Salama wuxuu go'aan ku gaadhay inuu reerkiisa la qaxo awrkii ay raaci lahaayeen ayuu diyaariyey xaaskiisii iyo ilmihiisii yaraabuu soo saaray
hoggaanku u qabtay si ay Madiina u qabtaan Madiina isagoo Maka ka sii baxaya ayaa la arkay jifadii xaaskiisu ay ahaayeen reer Bani Makhzuum oo Abi Jahl uu ka soo jeeday ayaa yidhi adigu haddaad naga adkaatay inantayadan waxa weeye halkaa la mari maysi ayadaanu kaala hadhaynaa bay yidhaahdeen way isku duubeen oo way ka xoogeen oo way ka qaadeen waxay ka soo reebeen xaaskiisii iyo ilmihiisii isaguna dan wuxuu arkay inuu naftiisa la baxsado sida uu ku dhaqaaqo haddana qoladii waxa weeyaan inanka yari uu ahaa Abu Salama uu jifadii uu ahaa ayaa markay ogaadeen bay soo weerareen qoladii gabadha la hadhay waxay yiraahdeen inantiina hadda qaadateen annagana inankayaga nasiya diintoodii uma ogola reerkaas inuu israaco uma ogola casabiyada iyo qabyaaladu markay indhalaadahay waxa weyn ma aragto laakiin meelo hoose wax ka agtaa hadday wanaag la doonayaan reerka oo inantooda ay karaameynayaan oo inankooda ay karaameynayaan waxa weeye way isku dari laayeen hooyo iyo ilmaheedii iyo odaygeedii may kala gaxeeyeen ayaguna ilmihii alaabay qaateen qoyska saddex meelood bay kala mareen hooyadii oo meel lagu haysto iyo ilmihii alaabay meel lagu haysto iyo odaygii oo waxa weeye meel u hijrooday saddexdaa bay noqdeen waa xaalad aad iyo aad u adag sanad bay haysteen meel ku xidheen Ummi Salama oo tiri sanadka bay halka ka ooyeys markay ilmaheediina la adahay odaygeediina ay la adahay ilmaadeeradeedii walaaladeedii ku haysta waxba uma tarayaan qiimana u yeelan maayaan sanadkii markay u adkaysay kari waayeen bay war inaga sii daayay qoladii kale ilmaheedii bay ku soo dareen sidii ayay kaga daba tagtay odaygeedii amba waxa weeyaan Abi Salama oo markaa ay Maka ku gaadheen yaani waxa weeyaan labadoodii ay ka daba tageen markay ka warramaysay ayay lahaayeen waxa weeyaan kala farqiyeen aniga iyo ninkaygii iyo inankaygii ilaa sanad xaaladaan ku jiray laakiin Ilaahay arintoodii uu isku soo ururiyay waxa kamid ah tusaale Suhayb ar-Rumi saxaabiga la oran jiray oo reer Ruum asalkiisa ka soo jeeday maalintii uu siray ka hijroodo iskaga tag ayay halkan dhufayska u galeen Quraysh saydaadii adigoo caydha oo faqiira baad noo timid xoolo badan baad shaqaysanay farsamo yaqaan buu ahaa maanta xoolaha intaad shaqaysatay halka mari maysi ilaa wixii aad shaqaysatay halka aad soo dhigto ka bixi maysi bay yiraahdeen waxa weeyaan Maka shardi buu la galo wuxuu xoolahayga haddaan idin siiyo oo dhammaan ay idinka tago naftayda ma amaan gelinaysaa haa bay yiraahdeen waa kuwan xoolahayga tirsada wiiloo qaata naftayda iyo diintaydu nabadgeliya iska marbayda halka isagoo waxba haysan oo gacmo maran ayuu ka soo baxay rasuulka uu bushaareeyay aayad quraanana Ilaahay uu ku soo dajiyay Ilaahay uu ku tilmaamayo ganacsigii Ilaahay uu la galay inuu markaa waxa weeyaan ku guuleystay oo macaashay walaalayaal casharada aynu ka qaadanayna waxa kamid ah hijrada nabiga sallallahu alayhi wa sallam qofku inaanu quusan hadduu qofku go'aan iyo mabaadi uu leeyahay hadduu wax aaminsan yahay hadduu arkayo waxa uu ku socdaa inay xaq tahay inaanu waxa weeyaan qof jixinjixa oo soo laabta aanu noqon go'aankiisa uu ku socdo bishardi wax uma muhiima inaad iska hubto wadada maraysa wado xaq ma tahay wado jannada ku geynaysa ma tahay wado aad ku badbaadaysa ma tahay hadda taa hubsato wadadaada waad ku soconaysaa caraaqil badan iyo marka jidgooye badan haday ka hor yimaadaan waad u adkaysanaysaa sida daraadeed ba nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam 13 sanadood ayuu dadka dacwada iyo khayrka iyo islaamka ugu baaqayay Maka sareeyo hoosba ugu sheegayay intaana caga jugleen iyo ciqaab iyo dheeldheel iyo in la caayo iyo in wax loo geysto mid walba waa lagu dayay nabiga sallallahu alayhi wa sallam in laga joojiyo waxa uu doonayo nabiga sallallahu alayhi wa sallam mar waxa la dhibiyay naftiisa marna waxa la dhibiyay dadka la socda si uu markaa waxa weeyaan uga kala yaacaan
laakiin nabigu kama noqon sallallahu alayhi wasallam bal markii uu arkay makaynaan waxba ka soo jeedin wuxuu si bal halkee kuugu dhow magaaladii magaalo ugu weyneed ugu dhaway Daa'if bay noqotay wuu u tagay si uu dacwada iyo khayrka u gaarsiiyo waxaanu maka kala kulmin wax ka daran ayuu kala kulmay waa la dhagaxiyay dumarkii iyo carruurtii dadkii waa la inta loo fayliyay dhiigii madaxiisa ka soo daay ayaa xidhibtiisa qooyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka soo baxay uu ka soo noqday isagoo meel alaaliyo meel uu jeedaan garanahayn oo miyir doorsoomay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam beera oo cillaa isagoo jooga ayuu ku miirsaday malagii buuraha u yimid oo yidhi kuwa sidaa ku galay amarkaagu may sugayaan in halkaa lagu halaago rasuulku ma eebu yidhi dhabarkoodan ka rajaynayaa qaar laa ilaaha illa allah yidhaahda naxariis socotuha rasuulka calayhi salaatu wasalaam muu aargoosanahayn cidda xumaysa bal wuxuu lahaa allaahuma qfir liqawmii fa innahum laa yaclamuun ilaahay ou tolkay u dembi dhaaf ma garanayaan waxaanay samaynayaan ma oge ilaahu dembi dhaaf u lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhaahdaa in ka badan 15 qabiil oo qabaa'ilkii waaweyneed ee jasiiratul carab ayuu dacwadii iyo diinta u bandhigay qolo walba odhan jiray waar ma idinku jiraan nin wanaagsan oo naftiisu waxa weeyaan isagu reerkiisa iga haysta si aan ilaahay diinta u gaarsiiyo oo markaa iga celinayo wixii dhibaya ma idinku jiraa buu odhan jiray cidi way u jawaabi weyday xaaladdu markay ku adkaatay markii dambe ilaahay faraj buu soo saaray reer Madiina dad kamida ayuu waxa weeyaan xajka goorgaar iyo qabiilo iyo magaalo ayuu la fadhiisan jiray ilaahay wuxuu qabuulkii siiyay dadkii Madiina ka yimid ee ka soo xajay xajkii ay xaji jireen waqtigii hore gaalnimada ayagoo xajaaya ayaa haddana ilaahay la kulmiyay islaamnimadii ay qaateen ayaga markaa hormood u noqday inay dacwadii soo dhaweeyaan nabiguna wuxuu sii raaciyay Mus'ab bin Umayr oo safiirkii koobaad ee islaamka noqday oo Madiina rasuulka iyo muslimiinta uga sii horeeyay oo dacwada sii gaarsiiyay quraanka dadkii sii baray islaamay taasi waxayna tusinaysaa walaalayaal qofku hadduu waxa weey mabdiiisa ku socdo tadxiyana uu la yimaado culaysyada ku imanayana uu adkaysto inuu marka dambe guuleysanayo taasi waxay dhashay dawladii islaamka ee koobaad in halka waxa weeyaan laga beero oo ay ka bilaabanto goordhowna caalamka dhan ay khayrkee uga faafiso casharadaynu ka qaadanayna waxaa ka mid ah hijrada nabiga sallallahu alayhi wasallam in la ogaado suxbada wanaagsan qofku noloshiisa keligii noolo noqon maayo wuxuu u baahan yahay qof saaxiib ah oo dhab ah oo farxadda iyo murugada la qaybsada waayihiisa uga waramo la taliya oo waxa weeye markuu culays dareemayo culayska ka fudaydiya markuu faraxsan yahay wanaag arkaayo la farxa ayuu qofku u baahan yahay qofka saaxiibkii ee dhabti waa qofka wanaagaaga kala talinaya maaha qofka danaysadaha ee maalinta aad ladantay ku garab jooga maalinta dhibtu ku qabsatana aad waayaysa meel u maray maaha maalinta waxa weeye jeebkaagu fiican yahay ninka waxa weeyaan had iyo habeen kula soo xidhiidhaya maalinta culaysku kugu yimaadana lambarka ka xidhanayna duba arkahayn ninka saaxiibka dhabti waa ka meel kugula noolaanaya kugula dhimanaya isku mabdaa tihiin naftiisa ku hurayaadna naftaada aad u huraysa ka weeyaan saaxiibkii koobaad ee nabiga sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr buha lidalika ayay ka muuqanaysaa saaxiibtinimada dhabti halkaas ilaahay baa quraanka ku amaanay markii ay ku soo dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee loo fasaxay inuu hijroodo rasuulku saxaabadu la hadlay wuxuu yidhi waxa la tusay gurigii iyo daartii u hijroonayseen oo meel geetimireed leh oo laba markaa waxa weeyaan buuroodo shiilmada oo u dhaxaysa magaalada magaceeda buu sheegay laakiin tilmaanta buu sheegay sidaa daraadeed rasuulku wuxuu yidhi saxaabada diyaar galooba waanu idmay Abu Bakr sidii saaxiibadii ay u diyaar garoobay isla diyaar garoobay markuu rasuulku arkay Abu Bakr oo diyaar garoobay wuu yiri Abu Bakr adigu yara kaadi
maxaa dhacay rasuulka ilaahayow wuxuu yiri waxaan rajaynayaa yaani waxa weeyaan in anigana lay fasaxo hijrade u kaadi maadiga rajaynay bil rasuulka aabaha iyo hooyada baan kugu furtay bimaana muu filanahayn rasuulka ayaa markaa laftiisu ka hijroon doona oo dhibta soo gaadhay uga tagi doona Maka muu filanahayn talabaad waxaanu filanahayn inuu rasuulka kaleey salaatu wasalaam hijrada la rafiiqayo naftiisi uu halka ku xabisay isagoo sugaayay rasuulka kaleey salaatu wasalaam inta la fasaxayo 4 bilood ayuu labadii gaadiidka ahaa isaga rasuulka ay raaci lahaayeen uu sii diyaarinayay oo wax daaq iyo calafkooda uu siinayay si waxa weey wax ka soo ku yimaada ay uga adkaystaan maalintii dambu nabigu sallallahu alayhi wa sallam u sheegay in markaa waxa weeyaan ay baxayaan oo loo fasaxay hijradii Abu Bakr radiyallahu anhu arinta markii loo sheegay ayaa uu rumaysan waayay inuu noqday saaxibkii rasuulka hijradaas kadibna Aisha ka waramaysa inantiisii xaaskii rasuulka ahayd waxay tiri maalinta ka hor ma rumaysan qofku inuu farxad la ooyo maxaa yeelay waxaan arkay tiri Abu Bakr markii arinta loo sheegay farxad awgeed isagoo ilmeynaya oo la ilmeynaya inuu rasuulka rafiiqiisa noqonayo sallallahu alayhi wa sallam way baxeen ayadoo markaa waxa weeyaan Abu Bakr uu hor socday goor hanaanayn habeenaanayn ay ka baxeen guriga Abu Bakr xaqiisa dambe guriga rasuulku uu saaxan jirayna si indhooda loo leexiyo Quraysh Ali bin Abi Talib la seexiyay say Quraysh markay sheeda uga eegaan meelaha uga khawsan oo arkaan qofka u hurda Abu Bakr iyo rasuulku way israaceen jihadii Madiina mooyaane jihada kale koonfureed bay uga baxeen Maka Abu Bakr ba meel ka soo marayeen iyo god ka soo gelayeen meel ka soo ku dhuumanayeen uga horeynayay si haddii cid dhibaato soo gaadhay isaga ay soo gaadho walaalayaal Abu Bakr radiyallahu anhu ayaa rasuulku markuu arkay ayaa wuxuu ku yiri Abu Bakrow ma haddii shay ahaan lahaa oo waxa nagu dhici lahaay maan jeclay inuu adiga kugu dhacbalo inuu aniga igu dhacaaya jeclaan lahaa wuxuu yiri may wallahi ilaahi xaq ku soo diray baan ku dhaartay يعني إن يريني كسوجا دانيك وحبي سوجا دين رالي كميه قد كمر كي قلنا يسقى وجوه الري أو قلي أو ملك استود دلو شيء أيو مركا وحويان أودي إلا إياه يعني وحويان مال يرصاه دينا وحلي وحويان لقتي سايو صار مركا رسولك صار قلي إلا وبهالكقنين لقتي الرسول كواركي وحويان يسقى تركي سجريرة أو إلما كسعته oo haddana ka baqay rasuulka bawdadiisa ku gamay inuu hurdada ka toosiyo marka uu rasuulku kaleey salaatu wasalaam yaani maxaa kugu dhacay uu sheegay suuq meeshii nabarkii uu masaxay uu ku tufay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka daweeyay waxa laga qaadanayaa qorshaha marka ummadu qorshe leedahay inay guuleysan karto dadku markay muhiimad iyo hawl leeyihiin haday doonayaan inay u guuleysato waa inay qorshe dejistaan ummad bila qorshe meel ma gaadho ummad waxa weeye maalin walba waxa taagan ka fikirto maxaynu qabanaa tirada meel ma gaadho horumar ma gaadho hijradaas oo kaliya culimadu waxay ka soo saaraan casharo fara badan oo ku saabsan xagga tadxiyada waxay ka bilaamaysaa rasuulku gurigii uu ka baxay cidla kaga mutageen albaabkana waa loo soo celiyay ninna waa la seexiyay si indhahooda loo jeediyo halka lagu mashquuliyo oo maanta dhan guri cidla u ilaashadaan ay gaar uga hayaan rasuulku waqtigu baxay habeen uu bixina waqtiga sanqadhu kala goday duhurkii kulaylaha ay dadku hadgalaan uu ka soo baxay gurigiisii oo Abu Bakr u yimi rasuulku kaleey salaatu wasalaam qorshi u degay oo Abu Bakr 4 bilood ka hor ayuu sii diyaariyay labadii gaadiid ay raaci lahaayeen waxay sii diyaarsadeen ninkii wadada marin lahaa waxay sii diyaarsadeen cidii cuntada halka ugu keeni lahayd waxay sii diyaariyeen cidii inta ay dhuumanayaan inay fogaanin warka Qureysheed saddexda maalmood ugu horeeyay warka u soo keeni lahaa oo halkay ku dhuumanayeen ugu keeni lahayn Abu Bakr ahaa waxay diyaariyeen cuntadii iyo sahayda ay qaadan lahaayeen iyo cidii u diyaarinayso Abu Bakr hablihiisa ahaa
waxay diyaariyeen dadka warka u keenaya amba u imanaya raadkooda wixii lagu masixi lahaa oo xoolaha amba adhiga in la soo dareeriyo halka la daajiyo si raadkooda loo tirtiro waxa soo dhamay qorsheeyay qorshii markii la dejiyayna waxa ka dambeysay inay hijradii guuleysato bal waaqicina haddaynu eegno ummadda islaamka maanta qorsheedu waa maxay maxay noo qorsheysan dawladaheena waxa laga yaabaa qorshahoodu inuu qorshe yar yar oo fudud u yahay degmooyin iyo gobollo iyo guud ahaan iyo xaafada ahaan iyo qoys ahaan aad buu yariyay ummadda wax qorsheysata bal waxa weeyaan sarawaadkeeni iyo khayraadkeeni ayaan loo dejin wax qorshe ah oo laga faa'iideeyo waxaynu nahay ummadda halkii 60kii ay joogtay wali maanta fadhida humumtii iyo wixii dhibtii haysatay iyo wixii uu ka fikirayay inankii dhalinyarada 60kii markaynu xorriyadda qaadanay halkii uu joogay maanta ilmaheenu jooga waxba yeena ismacaashiin shan madaxweyne iska keen bedelay kayba uga tagay maanta ku faanaya qorshaan dejiyeeyo ummaddu ay meel ku gaari karto ayaan uga tagayaa maanta aan ku faani doona qofku ma aha inuu waxa weeye yimaado sidii uu ku yimid uu ku tago laakiin waa inuu ummadda raad uga tago waxa baan uga tagay intaasoo biyo xidheen baan uga tagay intaasoo beerood baan uga tagay intaasoo qorshe iyo intaasoo warshadood baan uga tagay waxaasoo dhamay nooma qorshaysna ummad bilaa qorshii halkeeda ismay joogi kartaa hadday dadka hore u socdaan dubbay u socon kartaa waxa weeyaan waxa la yiraahdaa taariikhdu ma caawiso qofka doqonka iyo ummadda doqonka bilaa qorshaha hatta taariikhdu caawin mayso walaalayaal hijrada nabigeena sallallahu alayhi wa sallam aad bay u farabadantahay waxyaalada laga faa'iideysanayo waxaana kamida ummadda daaqaadka iyo awoodaha ilaahay uu siiyay oo dhan inay ka faa'iideysato marka bay guul gaarayso maanta waxa la inagu tiriyaa wadanada amba dhulka amba dadka waxoodii ay haysteen oo dhan ay qeydin yihiin hadday beer tahay hadday macdan tahay hadday bad tahay waxeedu uu qeydiya gaajiya haraadna way dhimanaysa hatta waxay ku faanaan xoolaan ku faanaa oo xoolaan u dhoofina oo waxa weeye caamalka maxaa loo diyaariyo xoolaheen maxaa looga tagay maxaa qorshe loo sameeyay ma jirto ilaahay noo naxariisto walaalayaal ummadda islaamki waxay ka faa'iideysanaysaa hijrada nabiga ilaahay la tala saarto laakiin asbaabtana la qaato nabigu sallallahu alayhi wa sallam oo oran ilaahay baan tala saaranaya wuxuu ilaahay qoray bay helaya waan iska dhaqaaqaya inta qorshe ay arkeenay kala dambeysay ayuu qaatay nabigu sallallahu alayhi wa sallam sida daraadeed waxa la yiraahdaa aqilha wa tawakkal awrkaaga waa la dabraa kadibna waa la sii daayay ilaahay baa la tala saartaa laakiin isagoo afrqaadinaya haddii sii dayso goordhow baadidoon baa ku dilaya waxa weeye isagu baad raadin doontaa sidaas oo kale waxa loo baahan yahay dadku wixii asbaab ee u baahan adduunka ku badbaadeen aakhira ku badbaadeen la yimaadaan inta kalena ilaahay subxaanahu wa ta'ala u daayaano ay u tala saartaan rabbi subxaanahu wa ta'ala ugu dambayn waxa hijrada laga faa'iideysanaya in laga hijroodo macaasida iyo dunuubta in laga hijroodo يعني waxa weeyaan macaasida iyo dadka ahl macaasida oo laga fogaado in qulubteena waxa weeyaan xaqa iyo wanaaga ay u hijrooto faman kaanat hijratuhu ila Allah wa rasuulihi hijratuhu ila Allah wa rasuulihi waxa ay ku jirtaa يعني waxa weeyaan taas ayaa lagu badbaadiyaa sida daraadeed waxaan aad iyo aad u dhiiri galinaynaa siirada nabigeena sallallahu alayhi wa sallam inaynu akhrisano guud ahaan waliba hijrada nabiga inuu wax weeyaan akhrisano 10 badan oo tani ay noqonayso dhibic intaaynu sheegnay يعني waxa weeye badda fawaaida ay ku jirta ayaa marka waxa weeye laga qaadanaya lidalika ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu markii uu doonayay inuu taariikhda qoro oo taariikhda hijrada oo khilaafo gaaladii iyo waxyaaladii ay taariikhda ka dhigan jireen ayuu yiri waxa weeye saxaabada intuu la tashaday
ومحي دعدده ugu weyn ee isbedelka muslimiinta ku sameeysay aynu taariikhda ku xusuusanaa waxa la isku raacay hijrada nabiga tahay sallallahu alayhi wasallam dacdada ugu weyn sidaas oo kale walaalayaal waxa fooday nagu soo hayso inoo bilaamaysa ayaama kadib shahrullahi almuharram bishi xurmada lahayd bishaasi waa bilaha ay tahay soomka in la badsado oo aad loo soomo gaar ahaan waxa ku jirta maalinta yawm aashura oo sanad dhameystira waxa weeye sanad dambigeeda lagu dhaafayo ayaa ku jirta ayadana waynu diyaar garoobaynaa thumma sallu wa sallimu man umirtu bis salati wa salamu alayhi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi